Rooksan Gardens waa xaafad cusub oo lagu soo kordhiyay magaalada Hargeysa taas oo leh xayndaab u gaar ah. Mashruuca dhismaha xaafadan waxaa ka mas'uul ah shirkadda la yiraahdo Capson Real Estate. Xaafadan waxaa ku dhan wax kasta oo daruuri u ah bulshada halkaas deegaanka ku noqon doona sida masaajidkii jamaacada, baakin weyn oo gawaarida la dhigto, dukaamada noocyadooda kala duwan, goobaha carruurta lagu ciyaarsiiyo. Xaafaddu waxaa kale oo ay ka kooban tahay 68 guryo deegaan ah. Si guud guryahaas waxaa loogu kala qaybiyay G+1 iyo G+2. G-da waa ground floor ama waa qaybta hoose, 1-kana waa hal biyaano, 2 markay noqotona waa 2 biyaano. Guri kasta waxa uu ka kooban yahay 6 qol oo jiif ah oo uu ka mid yahay qolka master roomka oo waalidka loogu talagalay. Sidoo kale wuxuu leeyahay qol fadhi iyo cuntada, jikadii iyo musqulaha oo gaaraya ilaa 6. Markii la eego gudaha guryaha waa mid soo jiidasho leh oo aad u diyaarsan. Qolka fadhiga waxaa ku dhan fadhigii, TV setup-kii loogu talagalay, alaabta kale decoration-ka ka qayb qaadato sida ubaxyada iyo wax la midka ah. Waxa kale oo uu leeyahay hawo iyo iftiin aad u fiican oo ku filan. Ceiling-ka ama saqafka kore ee guriga waa mid aad loo qurxiyay, gypsum fiican leh. Sagxadda hoose waxa ay sidoo kale lagu xardhay wood aad loo qurxiyay oo adag. Qolalka jiifka sidoo kale waa kuwo waasac ah, si gaar ah qolka master roomka la dhaho waxa uu leeyahay balcony weyn iyo sidoo kale daaqad weyn oo aad ka helaysa ama ku siinaysa view qurux badan oo guriga banaankiisa ah. Musqulaha sidoo kale waa kuwo aad loo qurxiyay oo qalabaysan oo appliances-kooda u dhameystiran yihiin, waana musqushii qabayska iyo midii kale oo caadiga loo isticmaalayay. Jikada sidoo kale waa jika casri ah oo model ah oo sidoo kale appliances-keeduna ay u dhameystiran yihiin sida stove-kii ama qalabka cuntada lagu kariyo, refrigerator-kii ama frinjeerka, sidoo kale qaanadaha quruxda badan ee ayagana alaabta la gashto. Xaafaddu sidoo kale waxa ay leedahay beero lagu nasto oo qofka jawi fiican ugu qaato, wadooyin waaweyn oo loogu talagalay qofka socod ama exercise hadduu sameynayo kale u isticmaalo, 2 swimming pool oo waaweyn, sidoo kale 2 gym oo ragga iyo dumarka loogu talagalay. Xaafadda waxaa loo naqshadeeyay in ay degaan amaba ay soo jiidato qoysaska si gaar ah u daneeya guryo casri ah, waasac ah, sidoo kalena nolosha ku wacan.